السلام عليكم. بشان رمضان وبش ugu faa'iidada badan 12 bilood ee sanadka. bishan markii loo fiiri 12 biloodoo kale ee sanadka waa sidii Nabi Yusuf oo ku dhex jira 12 walaalood ee uu lahaa ceel ha ku ridin sidii Nabi Yusuf ceel loogu riday waqtigaadana ha ku dayicin howlo aad u qiimo liita sidii Nabi Yusuf looga gatay lacag aad u qiimo liidata usoo dhaweey bishan sidii Aziizkii Masar uu usoo dhaweeyay Nabi Yusuf muuqaalkan waxaan kugu wadaagi doonaa 7 qodob oo ka saacidayso inaad si wanaagsan ugu faa'iideysatid bishani qodobka koobaad cadeyso waxaad qaban rabto bishan yoolka ka leedahay bishan ha kugu muuqda sidii dayax 14 joogo qodobka labaad qor yoolkaaga yoolka qoran lama hilmaamo qoraalka gacan weyn buu ka geystaa ka dhabaynta yoolka qoran xamaasad ayuu kugu kubcinayaa mar walba oo aad akhrisatid qodobka saddexaad waqti cayaman u sameey u jaangooy waqtiyaal cayaman ee maalinkii waxaan si naseexo ah ku siin lahaa inaad howlahaaga kulli faaqdid salaada tusaale salaada subax ka hore juz baan akhrisana oo quraanka dhig salaada kadibna adkaar baan akhrisan sida oo kale salaadaha kalena qodobka afaraad howlahaaga u kala qaad say u kala muhiimsihiin ka bilow fulinta midda ugu muhiimsan la jaanqaad tamartaada maalinka intaas energy leedahay qabo hawsha muhiimka ah qodobka shanaad hadayicin waqtiga mar walba isweydi waa maxay shayga ugu muhiimsan inaan waqtigan sameeyo ama ku cilcili erayada ah hada alwaqtu sayamdi waqtiga kan uu dhamaan qodobka lixaad diirad saar samaynta ha ka fikirin sidaad u samaysay ee diirad saar ma samaysay mase ma samaynin dabagal ku samay camalkaaga maalinka dhammaadkiisa isxisaabi maxaa kuu hirgelay maxaan kuu hirgelin wadada yoolkaaga aa ku gaari lahayd ma haysaa mase waa ka leexatay muuqaalka intan ayuu ku egyahay waad ku mahadsan tahay daawashadaada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh